insha Allah muuqaalkan hadii aad leed waxaan uga hadli doonaa sida ugu fudud ee aad u edit gareyn kartid video adigoo adeegsanaya mobilkaada ahaado android ama iphone. muuqaalkan waxaa soo codsaday walaalaha ku xiran kanaalka sida saaxiibkeena abwaan bulsheye, qof ay ugu qoran tahay qaran jacayl Cabdullaahi iyo asxaab kale oo badan. dhammaan asxaabta soo dirsatay codsiga aad ay u mahadsan yihiin. aynu guud galno barnaamijka. inta aadan muuqaalka daawan waxaan ka codsanayaa kanaalka hadii aad ku cusub tahay taawa calaamada subscribe-ka ee nagu soo biir. sidoo kale waxaad furtaa Ganbalelka si uu ku soo gaaro video kasta ee ugu dambeeya aan kanaalka soo gelino. waad mahadsan tahay. waxaan soo qaadan doonaa application-ka ugu fiican ee video lagu edit gareeyo adigoo isticmaalaya telefoonkaada. application-kaas waxaa lagu magacaabaa Kinemaster. application-ka Kinemaster waxaan ka soo diyaariyay full course oo dhameystiran. muuqaalkan ayaan ku soo koobi doonaa min bilow ilaa dhamaad. course-ga intuu socdo waxaanu baran doonaa 9 shay aynu baran doonaa. qodobka ugu hore waxaanu baran doonaa installation sida loogu shubto Kinemaster-ka ayanu baran doonaa. qodobka labaad waxaanu baran doonaa interface inaanu barano wajiga hore ee Kinemaster intuu ka kooban yahay oo idil. sidoo kale qodobka saddexaad waxaanu baran doonaa split jarid iyo kala barid inaanu baranno ahaado muuqaal ama cod ama sawir. sidoo kale qodobka afraad waxaanu baran doonaa extract audio kala saarid muuqaalka iyo codka ama separate. sidoo kale qodobka shanaad waxaanu baran doonaa transition af Soomaaliyan waxaa la lahaa inta yar u dhaxayso laba muuqaal ama muuqaal iyo sawir markay kala gudbayaan ayaa loo isticmaalaa transition-ka. qodobka lixaad waxaanu baran doonaa green screen sida loo isticmaalo videoyada green screen-ka qaabka loo isticmaalo ayaanu baran doonaa. qodobka toddobaad waxaanu baran doonaa blur effect af Soomaaliyan waxaa la tusaaleaan muuqaal ayaad meel ka soo qaadatay looga ayuu wataa qaabka loogadaas u qarin lahayd. qodobka 8aad waxaanu baran doonaa add text sida loogu daro qoraal muuqaalka. qodobka 9aad waxaanu baran doonaa rendering-ka project-iga aad diyaarisatay qaabka export aad ugu sameyn lahayd. insha Allah inuu gudgalno dhammaan barnaamijka anagoo ka bilaabayna installation-ka. si aad ula soo degtid application-ka Kinemaster waxaad booqataa browser kugu jira ayaad booqanaysaa telefoonkaada. aniga waxaan isticmaalayaa internet browser ayaan isticmaalayaa. qaybta sare ee wax lagu qoro Google-ka waxaad ku qortaa Kinemaster APK ayaad ku qoraysaa. sidoo kale waxaad kala soo degi kartaa application-ka Play Store-ka. ani badnaa Play Store ma isticmaali application-mada APK ahaan ayaan la soo degaa. kadib Kinemaster APK markaad qortid searching ayaad ku sameynaysaa. dhowr website ayuu ku keeni doonaa. waxaad ka doorataa website-ka ugu horeeya ee APK Pure ayaad ka dooranaysaa. Kinemaster midka ugu horeeya website-ka aad ku dhufanaysaa. website-ka ugu horeeya APK Pure markaad ku dhufatid sidan ayuu ku keeni doonaa. si toos ah waxaad ku dhufataa download APK aad ku dhufan doontaa. application-ka downloading-ka markuu dhameeyo waxaad ka raadisaa folder-ka download ayaad ka raadinaysaa. waad u jeediin oo midkan Kinemaster Lite Pro. mid kalena aan idin sheego Kinemaster Lite Pro-gan Kinemaster-ka official-ka haduu kuu soo dego official-ka Kinemaster Lite Pro-gan ani hadda isticmaalayo wuxuu ugu duwan yahay. horta official-ka MB-giisa ayaa aad u sareeyo. kan hadda MB-giisa markaynu fiirino Kinemaster Lite Pro-gan waa 17.19 MB waa. Kinemaster-ka official-kan wuxuu ku fadhiyaa MB-giisa 40 dhowr haduusan 50 gaareen 40 dhowr ku fadhiyaa. marka waxaan kugula talinayaa Kinemaster Lite Pro-gan ani haddaan isticmaalo oo furaha dush uu ka saaran yahay. waxaan kuu soo dhigi doonaa qaybta hoose video-ga description-ka inaad furtid meesha aad ka soo download gareysid. description-ka fur linkiga meesha ayaan kuu soo dhigi doonaa si toos ah Kinemaster Lite Pro-gan meesha ka soo download gareyso. qaabkii hadii aad raacdid waxaa kuu soo degi doono Kinemaster-ka official-ka ayaa kuu soo degi doona insha Allah. walaalayaal qodobka ugu horeeya sidaan ayaan ugu baxnay installation-ka. waxaan u gudagali doonaa interface-ka wajiga hore ee Kinemaster-ka inaanu baranno. Kinemaster-ka telefoonkaada markuu soo galo waad furaysaa si aynu u barano interface-ka. goore intaan interface-ka aan u gudgalin walaalayaal waxaad soo furtaa qaybtan setting-ka hoose aad soo furaysaa. meesha setting markaad soo furtid oo Kinemaster-ka waxaanu ka hadli doonaa waxyaabaha important-iga oo qofka inuu fahmo loo baahan yahay. qaybtan ugu horeysa ay ku qoran tahay information-ka muhiim nooma ahan ka subscribe iyo device information telefoonka inuu isticmaalayna ayuu noo sheegayaa. qaybta editing-ka markaan imaano qaybta gudaha ayaan uga hadli doonaa. haddana qosay ayaanu ka hadli doonaa. qaybta markaad imaatid ee hoose qaybtan export-iga ayaana qosay walaalayaal. project-gaada markuu ku dhamaado frame rate-ka aad ku export gareyn lahayd haduusan 30 ku saarnayn meeshan 30 ka dhigo. 30 aad u fiican yahay marka frame rate-kan 30 ka dhigo. waxaad ku dhufataa si aan interface-ka aynu barano calaamadan plus-ka aad ku dhufanaysaa. dib waxaad ka doorataa empty project ayaad ka dooranaysaa. empty project markaad ku dhufatid sidan ayaa ku soo muuqan doonta. marka ashyaada inta saaran dhan aan baran doonaa. waxaynu ka bilaabi doonaa qaybtan hoose. qaybtan hoose ayaanu ka bilaabi doonaa. meeshan waxaa lagu magacaabaa track. waa meeshaad ku jijari lahayd ay kaaga soo muuqan lahaayeen video-ga ama codka ama music-ga ama sawirada. waxyaabaha la edit gareyn rabo ayaa kaaga soo muuqanaya. meeshan waxaa lagu magacaabaa timeline ayaa lagu magacaabaa. sidoo kale qaybtan kale markaad fiirisiin oo hoose oo inta ah calaamadan waxay ku muujinaysaa start point iyo end point ayaa la kala lahaa. tusaale ahaan track-gaada bahalkan track-ga aad u jeediin haddii meel dhex aad joogtid waxaad keeni kartaa mar start point marna waxaad keeni kartaa end
point markaan gudaha galno ayaan arki doonaa insha Allah oo produce aan sameyn doono oo video aan soo saari doono qaybtan kale oo kor markaad fiirisid oo inteena waxaad ka weynaysan kartaa trackgaada ayaad ka weynaysan kartaa in track ayaad ka weynaysan kartaa qaybtan kale inta markaad u maatid waxa waaye play button waaye videogii ayaad ka daawanaysaa inta markaad fiirisid waxa waaye nama quseeyaan store ko waxa waaye Kinemaster ko waaye walaal qaybtan markaan fiirno cod ayaa laga duubaa si toos ah saad aad ku dhufatid cod ayaad ka duubaysaa timeline-kaada ayaa hore ka imaan doona insha Allah stop markaad dhahdidna qaybtan waxa loo isticmaalaa walaalayaal inaad music aad ka soo gelisid sidoo kale qaybtan media browser-ka waxa laga soo geliyaa ayadana sawiraanta waxyaabaha la edit gareyn lahaa oo idil ayaa laga soo geliyaa wax walba video sawir ayaad ka soo gelinaysaa media browser-ka sidoo kale layers-kana waxa loo isticmaalaa hadda nooma furmaayo laakiin waxa loo isticmaalaa ayadana markaad rabtid inaad si khaas ah layer media browser-kan iyo layer-ka way kala duwan yihiin tusaale ahaan media browser-kan waxaad ka soo dooratay background ee inta ka soo dooratay tusaale ahaan background-ka marka sidan hadda media browser-kan aan ka soo doortay dib layer-kan hadda wuu inoo furmaya waad u jeedin haday ma furmayn media markaad ku dhufatid waxaad ka soo gelin kartaa sidoo kale sawir si toos ah hadda markaad layer-ka ka soo gelisid isdul fuulayaan wixii layer-ka ka soo gelisay midkan ayaa wuxuu u noqonayaa layer u noqonayaa background-kan aad u jeedin laakiin haddii aad media aad ka soo gelisid mar labaad dhaxda waxa imaanaya transition waxa la lahayaa imaanaya tusaale ahaan sawirkan kale aan soo geliyo waad u jeedin Soomaan qaybtan waxa soo gal transition ayaa soo gali marka layers-kan ayaan ka soo dooranaynaa mid kalena inay kala duwan yihiin kala ayaan ogaanaynaa layers-ka media mar labaad ayaan ku dhufanayaa waxaan soo dooranayaa sawirkan ayaan soo doortay waad u jeedin haday markaan si toos ah laba mar ugu soo doortay media browser transition ayaa u dhaxay hadda transition uma dhaxay markaan sidaas ay ku kala duwan yihiin sidoo kale markaan fiirno layers-ka waxyaabaha ku jira waxa waaye effect ayaa ku jiro effect-gan waa blur waaye qayb kamid ayaad rabtaa inaad kharisid videogaada inuu imaan doona ayadana oo baran doona insha Allah sidoo kale waxa ku jiro stickers ayaa ku jiro oo aad u badan ayaa ku jiro aad u jeedin intaano sticker ayaa ku jiro sidoo kale layers waxa ku jiro text qoraal ayaa ku jiro inuu arki doona ayadana qaabka loo soo geliyo sidoo kale waxa ku jiro handwriting ayaa ku jiro handwriting-kan sidoo kale qaybtan gudaha markaa fiirisin oo gaduudka ah markaad ku dhufatid laba shay ayaa kaaga soo bixi doono hadda ayaad muuqaal ka record gareyn kartaa adigoo Kinemaster-ka jooga qaybtan markaad fiirisid camera recording sidoo kale adoo Kinemaster-ka dhex jooga ayaad wax sawir kartaa qaybta camerada kaaga soo muuqan qaybtan kale ee kor markaad fiirisin labada calaam waxaad u isticmaali kartaa back way mid waxyaabaha errors-ka tusaale ahaan hadda waxaan rabnaa inaan tuurno qoraalkan intuu ku yaala camal dib ayaan ugu laaban karnaa anagoo delete aan dhihin qaybta hoose markaan fiirno waxa waaye waad ku soo celin kartaa hadana mar labaad waxaan rajeynayaa inaad fahanteen labadaas calaamo sidoo kale calaamadan share-ta aad u jeedin waxa loo isticmaalaa videogaada markaad produce aad ku sameyn rabtid aynu baran doonaa rendering-ka qaybtan setting-gana markaad setting aynu imaano waxyaabaha ku jira aynu aragno project setting waaye setting-kii haday aanu soo marayno oo frame-ka aynu ka soo saxayno waxa waaye Kinemaster waaye setting-kan waxa waaye project-gaada waaye marka saddexdan shay ayaa ku jiro qaybta kore audio iyo video iyo editing audio waxyaabaha aad iska six kartid audio wuxuu leeyahay fade in fade out wadan shay aad ugu muhiimsan dadka markuu soo galaayo inuu si laciifnimo uu ku soo galo markuu dhamaanayo inuu si laciifnimo uu ku dhamaado hadii aad rabtid per second waaye waad saxan kartaa marka aan hadda uma baahni labadoodaba qabta videogana isku mid waaye marka fade in fade out leeyahay video markuu soo galo inuu xoogaa mugdi uu ku bilaawdo dib si toos isu saxo iftiin oo fiican uu qaato editing-kana aynu imaano midka ugu horeeya waxa waaye default photo duration waaye hadii aad sawir soo gelitid inta second si default ahana uu fadhiisanayo ama uu qaadanayo waaye midka labaad sidoo kale layers si default intay u qaadanayaan cropping-ka markaa sameysid auto cropping-kan project default cropping-kan midka ugu hooseeya project setting-kan walaalayaal waxa ugu fiican siduu yahay ee ugu fiican marka waxaan kuula talin lahaa sidaan inaad ku deysid waxba aadan ka bedelin insha Allah walaalayaal interface-ka sidaan ayuu noogu dhamaado waxaan u gudgal doonaa cut and split jarid iyo kala barid si aynu u barano cut and split ama Afsomali ahaan jarid iyo kala barid project-gaada ayaad soo furinaysaa waxaan soo dooranayaa qaybta media browser waxaan ku baranaynaa hal video aynu ku baran doonaa qaabka loo kala jarjarayo waxaan ka soo hadlay interface-ka markaan ka soo hadlayo calaamadan hoose start point end point ay ku tagaysa calaamadan hadda waxaan joogaa meesha ugu dambeysay oo video ku dhamaanayo meesha koowaad inaan si dhaqsi aan ku tagaan rabaa aanan jeedin videogan waad u jeedin 4 daqiiqo iyo xooga ayuu soconayaa waxaan ku dhufanayaa calaamadan start point-ga ayuu tagay soo ma jeedin mar labaad hadaan ku laabto
end point ayuu tagaa marka calaamadan inaad fahantid ay ku muhiimsan shay walba qaabka loo isticmaalayo ka start point-ga ayaan rabnaa inaanu ka bilowno waxaan rabnaa qaabka loo jarayo ugu horeen video-ga ama sawirka markuu si tan uu kugu diyaarsan yahay waad ku dhufanaysaa markaad ku dhufatid ashiyaadan ayaa inta kaaga soo muuqan doonto waxaad ku dhufataa manqaskan ayaad ku dhufanaysaa kadib waxa ku soo bixi doona Kinemaster-ka wuxuu leeyahay intaan dhan ayuu leeyahay midka ugu horeeya marka shay aan u baran doona midka ugu horeeya waxaad jari kartaa inta hadda aynu soo dhaafnay calaamadan meeshay ku taagantahay u soo muujadeen oo intuu soo dhaafi dhanad ayaad jari kartaa tusaalaan markaan ku dhufano waad u jeedinaad intaan soo dhaafnay dhanaan soo jarnay kan labaadna trim to right inta dhiman hadda video-ga intuu jooga soo maahan halaas yar intaanan ahayn inta kale dhiman qaybta midig jirta dhan uu jaraya markaan ku dhufto waad u jeedin aan soo celiyo sidoo kale kan saddexaad split waxa loo isticmaalaa video-ga ayaad rabtaa inaad kala bar aad ka jartid ama meeshaad rabtid ayaad ka jar rabtaa split ayaad ku dhufanaysaa dhaxdo ayuu ka kala jaray cut split sidaan ayaa loo isticmaalay marka waxaan u gudub gali doonaa qodobkeena afraad oo ah extract audio si aynu fahanno extract audio inaanu kala saarno muuqaal iyo cod waxaad ku dhufanaysaa calaamada plus ayaad ku dhufanaysaa empty project ayaanu leenahay waxaanu soo dooranaynaa muuqaal ayaanu soo dooranaynaa sababtoo sawir laguma sameyn karo waxaan rabnaa inaanu kala saarno video iyo music inaanu kala saarno media browser ayaan ku dhufanayaa muuqaal ayaan iska soo dooranayaa muuqaalkan ayaan soo doortay waxaan ku dhufanayaa start point-iga bilowaan leeyahay marka hadda waad u jeedin walaalayaal way isku dhex jiraan muuqaalkan iyo cod way isku dhex jiraan tusaale ahaan play aan dhaho marka cod saas kuma jira xitaa oo music background ma lahan laakiin cod ayuu leeyahay marka codkiisa ayaan rabnaa inaanu ka jarno video-ga ayaad ku dhufanaysaa ugu horeen talaabada ugu horeysa video-ga ayaad ku dhufanaysaa kadib waxaad ku dhufanaysaa qaybta manqaska ayaad ku dhufanaysaa split and cut ayaad ku dhufanaysaa split and cut markaad ku dhufatid waxa active noo noqday waad u jeedeen extract audio ka saar codka muuqaalka waxaan ku dhufanaynaa extract audio qaybta hoose leer oo waxa noo sameysmay oo cod ayaa noo sameysmay marka haddii aad rabtid codkan kaligiis waad iska tuuri kartaa adoo taabanaya qaybtan delete ee active kaaga ah qaybtan haddii aan delete ku dhufto waad u jeedin Soomaan muuqaalka hadda ma yeelan doono wax cod dhan ma lahan walaalayaal hadda waxa way xabadan uurida yarkan xitaa waa la maqlaay marka hadda cod dhan ma lahan waxaan jeclahay inaad fahanteen dhamaantiinba qaabka extract local sameeyo marka walaalayaal waxaan u gudub gali doonaa qodobka shanaad oo transition si aynu barano transition-ka ama Afsoomaaliyan kala gudbinta waxaan ku dhufanayaa calaamada plus ayaan ku dhufanayaa waxaan ka dooranayaa empty project ayaan ka dooranayaa sidoo kale waxaan ka dooranayaa media ayaan ka dooranayaa waxaan soo gelinayaa dhowr sawir ayaan soo gelinayaa si aynu u fahanno transition-ka kala gudbinta waad u jeedin walaalayaal dhowr sawir ayaan soo doortay marka transition ayaan rabnaa hadda inaanu sameyno transition ma lahan hadda markaad fiirisid sawir walba wuxuu sameynayaa motion ayuu sameynayaa wuu socdaa socodkana waad ka joojin kartaa ugu horeen tusaalaan midkan ugu hore uu socdaa Soomaan waad ku dhufanaysaa kadib waxaad ka dooranaysaa calaamada crop ayaad ka dooranaysaa calaamadan labadan shaashad ay ku soo saari doonaan marka walaalayaal labadan shaashad waxay ku cadeynayaan start point iyo end point ay ku cadeynayaan position-ka uu ka bilaabanayo position-ka uu ku dhamaanayo marabna marka anaga inuu sameeyo socod sawirka waxaad ku dhufanaysaa calaamadan u dhaxeeya aad ku dhufanaysaa equal-ka markaad ku dhufatid waad u jeedin sawirkan hadda ma socdo sawirkan labaad markaad imaadidna uu socdaa markaani tusaale video-gan waxaan u rabaa dhamaantood inay wada socdaan waan ka qaadayaa equal-ka kadib waxaan soo dooranayaa hal music ayaan soo dooranayaa music-dan ayaan iska soo doortay marka transition waxa la transition labadan sawir hadda sawirkan iyo sawirkan intii yar u dhaxaysa ayaa lagu magacaabaa transition-ka kala gudbinta waad ku dhufanaysaa qaybta cadaanka aad ku dhufanaysaa intaanu transition ay ku jirto waad ka dooranaysaa midka jeceshahay tusaale ahaan anaada 3D-gan ka soo dooranaya kadib qaybtan hoose ee shaashada wuxuu ku keeni doonaa shaashadan hoose aad u jeedin per second uu ku soo gali karo inta jeceshahay aad saaranaysaa tusaale ahaan anaada 1.5 ide sidoo kale sawirkan labaad ayaa imaanaya transition-kan labaad kadib midkan cubic ayaan ka dooranaya kan saddexaad ayaa imaanaya transition-ka transition waxaad ku daysaa kanoogan marka hadda play aynu dhahno aynu aragno marka qaabku transition-ka uu sameynayo faa'iidadu leeyahay transition-kana marka video quruxdiisa ayaad ka dareemi doontaa insha Allah video-ga muuqaalada idinka aad sameyn doontiin transition-ka calaamada play ayaan ku dhufanayaa
meesha marka joogtid Kinemaster ka transition ka sidan ayaa loo isticmaalaa transition kala goon waad u samaysan kartaa marka anaga default-iga ayaan isticmaalayna haddii aad baratidna waad samayn kartaa marka transition ka sidan ayaa loo isticmaalaa insha Allah waxaynu gudbi doonaa walaalayaal qodobka kale oo xiga qodobka lixaad oo ah green screen ka qaabka loo isticmaalo si aan u isticmaalno green screen ka muuqaalada qaabka green screen ka loo qaado waxaan ku dhufanayaa calaamadda plus ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan ka dooranayaa empty project ayaan ka dooranayaa waxaan ka sii dooranayaa media ayaan ka dooranayaa media waxaan ka isticmaali doonaa background kan qaybtan background ka ayaan ka isticmaali doonaa waxaan ka sii dooranayaa background kan madowga ayaan ka dooranayaa tusaale ahaan xogaa yar dheereeyo marka qaybta ugu horeeya ayaa imaanaya sidoo kale waxaan soo dooranayaa video oo green screen wato waxaan ku dhufanayaa qaybta layerka ayaan ku dhufanayaa hadda media kuma dhufanayo media hadaan ku dhufto wuxuu noqonaa meeshan transition ayaan soo galaa marka qaybtan hoose ayaan rabaa inaan keeno layer ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan kasii dooranayaa media ayaan ka dooranayaa muuqaal green screen ayaan soo dooranayaa marka tusaale ahaan muuqaalkan ayaan soo doortay marka muuqaalka siitan ayuu ku soo saari doonaa calaamadan hoose aad waxaad ku samayn kartaa waad soo kala jiidaysaa shaashada ayaad la ekaysiinaysaa inta markaa samaysid green screen ka waxa loo qaadaa calaamadan aad u jeedin chroma key ayaa la marka hadda inta kuma qorno ma qaano marka adiga gabar ku sawiran I think gabar u jeeda kana aad ku dhufanaysaa kadib siitan ay ku soo saari doonaa chroma key enable ayaan ku dhufanaynaa tif ahaan ay ugu qaadaya hadduu colorkaada uu yahay color ama muuqaalada aad duubtay muuqaalo green screen sax ah haddii ay yihiin si active ay ugu qaadaya aad u jeedin walaalayaal haddii wuxuu watay green uu watay haddana waxa waaye si toos ayaan ugu qaadnay calaamadooyinka icon-ka aanu isticmaalayno marka qaabkan ayaa loo isticmaalaa green screen ka marka walaalayaal inaad fahanteen ayaan rajeynaa green screen ka qaabkan ayaa loo isticmaalaa insha Allah waxaan u gudbi doonaa blur effect qodobka toddobaad ayaan u gudbi doonaa blur effect qaabka loogu daro si aynu u sameyno blur effect-iga ama muuqaalka si aan caweer Afsoomaalian aynu ugu darno calaamadda waxaan ku dhufanayaa plus ayaan ku dhufanayaa waxaan ka dooranayaa empty project ayaan ka dooranayaa kadib qaybta media ayaan waxaan ka soo gelinayaa muuqaal wata logo waxaan rabnaa logodiisa inaanu qarino hadda u jeedin muuqaalkan walaalayaal qaybta sare markaad fiirisiin logo ayuu wataa logadaas ayaan rabnaa marka inaanu qarino waxaan ku dhufanayaa qaybtan layerka ayaan ku dhufanayaa waxaan ka dooranayaa effect ayaan ka dooranayaa qodobka labaad oo effect-iga ayaan ka dooranayaa kadib qaybta basic ayaan soo furi doonaa labadan ayaa ku jiro midka rabtid aad isticmaali kartaa marka aniga mid kamid ayaan iska soo dooranayaa kadib meesha aad rabtid aad geenaysaa marka calaamadan ayaad waxaad ka sameynaysaa crop ayaad ka sameynaysaa geeskan ayaan geenayaa markaan yareeyo sidoo kale hadda aad u jeedin xogaa yar wuu muuqdaa soo maahan qaybtan waxaad imaanaysaa oo setting laga hagaajinayo effect-iga hadda size-ka waxa waaye 5 waaye baad ka weynaysan kartaa marka ilaa waxaad geenaysaa 20 hadda marka muuqaalka ayaa waxaan sameynaynaa waan la ekaysiinaynaa si aysan loogada u soo bixin marka muuqaalka aad ay u dheerayahay intaan ayaanu ku fahmaynaa marka intaan nooga ekay aynu fiirino marka hadda muuqaalka qaabkan u qariyay loogadiisa waad u jeedin Soomaan muuqaalka loogadiisa kuma muuqdo marka qaabkan ayaad u qarin kartaa oo loo isticmaalaa blur effect-iga laba xabo oo blur effect ayuu leeyahay marka labada qaab waad isticmaali kartaa adoo ku qaranaya shayga rabtid muuqaalkaada marka walaalayaal blur effect qaabkan ayaa loo isticmaalaa insha Allah waxaan u gudbi doonaa qodobka 8aad oo ah add text sida qoraal loogu daro muuqaalka si aan u sameyno add text ama qoraal ku daris muuqaalka waxaan ku dhufanayaa calaamadda plus ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan ka dooranayaa empty project ayaan ka dooranayaa kadib waxaan ka sii dooranayaa media waxaan soo gelinayaa muuqaalkan ayaan soo gelinayaa si aan qoraal aan ugu soo darno qaybta waxaad tagaysaa layerka aad tagaysaa waxaad ka doorataa layerka markaad tagtid text aad ka dooranaysaa qaybta qoraal loogu daraayo kadib qoraalka rabtid ayaad ku daraysaa okay aad ku dhufanaysaa qoraalkaad markaad dhameysatid xogaa qoraalka dhankan waad ka soo weyneyn kartaa adoo calaamadan isticmaalaya gudaha oo size-ka marka qoraalkii inta ayaan rabaa inaan dhigo sidoo kale qoraalka waxaad ka bedeli kartaa farta waad ka bedeli kartaa farta default-iga oo telefoonka fartiis ayuu ku qori doonaa farta ugu horeeyo hadii aad jeclaysato waad isticmaali kartaa eeda capital eeda small ka ayaan ku dhufanayaa si aan ugu bedelo marka dhowr ayaa ku jiro dhowr xabo ayaa ku jiro midka rabtid aad isticmaali kartaa sidoo kale color-kana ayaad ka bedeli kartaa shape-kana aad u jeedin white ayuu active ku yahay color-ka jeceshahay aad ka dooranaysaa marka dhowr color ayaa ku jirto dhankan waad ka soo juice gareyn kartaa calaamadan hoose markaad fiirisid adoo sameynaya color-ka sidoo kale walaalayaal qoraalka waxaad u sameyn kartaa animation ayaad u sameyn kartaa
meeshaan markaad soo furtid calaamooyinkan shapeskan oo saddexda isu dul saaran midka ugu horeeya oo dhanka bidixda jira markaad soo furtid markuu qoraalku soo galayo waxaan rabnaa inuu ku soo galo tusaale ahaan slide kan dhankan inuu ku soo galo oo bidixda xogaa time-kan oo weynaysan kartaa intuu ku soo galayo sidoo kale midka dhaxda shape-ka dhaxda markaad fiirisidna waxa waa intuu qoraalka joogo muxuu sameeyaa oo animation ah waxaan rabnaa qoraalka sidiisa markuu yahay ma rabno inuu wax sameeyo aninan ayaan iska dhaha marka aad waxa rabtid aad dooranaysaa shape-kan ugu dambeeyo dhanka midigta markaad soo furtidna waxa waa qoraalka markuu out animation markuu baxayo qoraalka sidee ayaad rabtaa inuu u dhamaado marka waxaan iska leeyahay slide right ayaan leeyahay dhanka midigta u dhamow marka xogaa aynu soo dheerayno qoraalka play aan dhaha marka qoraalka sidoo noqonayo inuu aragno waad ujeedin walaalayaal qoraalka dhanka wuxuu ka soo galay bidixda ayuu ka soo galay wuxuuna u dhamaanayaa dhanka midigta ayuu dhamaanayaa marka inuu aragno qoraalka markuu dhamaado marka walaalayaal aad text qoraal ku daris sidaan ayaa loo sameeyaa adigoo adeegsanaya Kinemaster-ka waxaan jeclahay inaad fahanteen waxaan u gudbi doonaa qodobka xiga oo ah qodobka ugu dambeeya oo rendering-ka qaabka video-ga produce loogu sameynayo si aynu sameyno rendering-ka ama qaabka project-gaada markuu ku diyaarsan yahay save to gallery aad u dhihi lahayd hadda waxaan diyaarinaynaa project ayaan diyaarinayaa kadib empty project ayaan leeyahay waxaan kasoo dooranayaa media ayaan kasoo dooranayaa muuqaalkan ayaan soo doortay wax walba markaad dhameysid oo muuqaalka ku saabsan aad diyaarsatid laba qaab ayaad save to gallery u dhihi kartaa qaabka ugu horeeyo waxaad taaban kartaa calaamadaas share ayaad taaban kartaa calaamadan aad u jeedin kadib waxaad ka dooranaysaa save to gallery ayaad ka dooranaysaa mise waxaad sameyn kartaa backspace-ka dhankan markaad fiirisid backspace-ka ayaad ku dhufanaysaa kadib wuxuu ku keeni doonaa qaybtan project-ga ayuu ku keeni doonaa hal mar ayaad waxaad ku dhufanaysaa project-ga ayaad ku dhufanaysaa kadib sitan ayuu ku soo saari doonaa waxaad ku dhufataa calaamada share ayaad ku dhufanaysaa ani hadda waxaan rabaa midkan inaan isticmaalo oo share aan ku dhufto kadib waxaan leeyahay save to gallery aan dhahayaa save to gallery markaad aad walaalayaal intaan ayuu ku soo saari doonaa oo size ah full HD haddii aad u baahan tahay inta MB uu ku fadhiisanayo sidoo kale full HD midka labaad high definition media quality low quality marka intaan waa ka bedeli kartaa ugu horeyn markuu cusub yahay Kinemaster-ka MB badan ayuu ku fadhiisan doonaa si aad MB-daas aad u yareysid waxaad soo furtaa calaamadan saddexdan dhibood ayaad soo furaysaa sidoo kale waxaad ka doorataa change bright ayaad ka dooranaysaa wax walba waxaad ka dhiganaysaa dhaxda ay joogaan markaad fiirisid baaladan low ayaad ka dhigaysaa bright-ka mid walba low ayaad ka dhigaysaa low ka dhig dhamaantooda low markaad ka dhigtid calaamadan ayaad soo furaysaa haday full HD wuxuu ahaa 63 MB ayuu ahaa hadda wuxuu noqday 23 MB ayuu noqday marka anaad waxaan rabaa full HD gan midka labaad oo ah 19 20 18 loo isticmaalo badna YouTubers-ka midkan ay isticmaalaan oo labaad midkan ayaan ku dhufanayaa kadib si toos ah wuxuu u sameynayaa exporting ayuu sameynayaa waad u jeedin exporting project markuu dhameeyo ayaan arki doonaa insha Allah walaalayaal hadda waad u jeedin uu dhameeyay marka project-ii uu inoo dhameeyay si toos ah play ayaan dhigi karnaa marka hadda inaanu aragnaa rabnaa marka full HD inuu ka dhigay in kale calaamada play ayaan ku dhufanayaa waad u jeedin walaalayaal full HD waa sidiis ayuu ku soo saaray muuqaalka marka sidaan ayaad u sameyn kartaa rendering-ka oo la save gareynayo video-ga walaalayaal intaan qodob ayaan kasoo diyaariyay Kinemaster-ka ugu muhiimsan marka dhamaantiin waxaan rajeynayaa inaad fahanteen